haddana annaka noo danaynin xataa idinku madanaysa weysay milyan iyo 500 ilaa 2 milyan oo dollar canshuuraha bil kasta soo gelina annaka dawladda wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdullaahi Omar musharax shaqadii looga baahnaa ay dayacan tahay Garissa Nairobi Istanbul iyo Minneapolis oo hadda ku sugan yahay waxuu ka wadaa abaabul siyaasadeed halka dekedda Muqdisho ay ku xayiran yihiin gawaari ka badan 500 waxay halkaas yaalaan muddo dhowr iyo 30 cisho ah milkiilayaasha gawaaridan waxay bixiyeen canshuur 1500 ah taargada iyo buuga gaariga oo ah $138 $30 oo loogu talagalay dhismaha wadooyinka gobolka Banaadir $10 minishibiyo iyo $10 oo nootaay ah wadarta waxa ay noqonaysaa $1688 iyagoo intaas bixiyay gawaaridooda waxa xiran yihiin wali waxaan ku socda lacagta baarkinka oo maalinkii ah $20 maxay tahay sababta ay u xiran yihiin waxa haysta taargalaan wasiirka gaadiidka wuxuu qaab qaraabo kiila ku siiyay qandaraaska samaynta taargooyinka shirkad magaceedu yahay Kulmiye General Transportation and Logistics xildhibaanad Xaawo Maxamed Aadan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa kamid ah 3 qof oo la siiyay qandaraaska shirkaddan waxay awoodi kari weysay inay samayso taargooyin ku filan gawaarida cusub ee Muqdisho la keeno waa kuwan milkiilayaasha iyo ganacsatada keena gawaarida oo ka warramaya arrintan wasaaradda gaadiidka kama helno taargada iyo buugi haddaan qabsanana waxayna tiraa war kambanigi taargada iyo buuga soo suubaay ayaa lacagta wasaaradda maaliyadda ka qaaday lacagtina lama siinin taargada iyo buugina sidaasay u xayiran tahay lacagtii wasaaradda maaliyadda ku xayiran markaan dhahna anaga wasaaradda maaliyad wax nagama geline taargada iyo buugina siiya hadda kambaniyadii waa kuwaana kambaniyadii aan u tagnay kambaniyadii aan waxaan dhahnay war idinka lacagta taargada iyo buuga qandaraas ku qabo lacagtina waa la ka qaada taargada iyo buugna siiya kambaniyadina waxay noogu jawaabeen waliba ayagoo mas'uuliyiin dawladda kamid ah oo qaarkood xildhibaanaya ay kamid yihiin lacagtii wasaaradda maaliyadda ba naga qabtaba milyan iyo 500 ilaa 2 milyan oo canshuur ah ayaanu dhiibnaa bil kasta haddii annaka inoo danay waayeen ayagu xataa madanaysa waayeen oo dantii wixii laga lahaa makeeni waayeen caqabada ugu weyn ee taagan waxay tahay shirkadda lagu siiyay qandaraaska taarigada iyo buuga in aysan hayn quality shirkad soo saari karta capacity-ga waxa loo baahan yahay caqabada waxa keenana iyada waa qandaraaska lagu siiyay shirkadda ma ahayn mid albaabadiisu furaayeen ma ahayn mid loo tartamay ma ahayn mid waxna la ka ogeysiiyay annaka iyo gudigeennaba ma ahayn mid aan shaqo ku leenahay hadda waxaa timid ka daro dibidhal taarigadii oo dhanaaba go'daba bataatan baabuurtina dekeday ku jirtaa haddii hadda la dalbo walow aana qofuba dalbin bil iyo bar ay imaahaysaa maalintina waxaa nagu socoto alaa baabuur $20